waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Tani Warwad garaad Maxamed garaad Abshir Saalax Maxamed garaadka beesha guuleed garaad bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Tani Warwad ayaa si mug iyo miisaan loo soo dhaweeyay waftida uu hogaaminayo garaad Maxamed garaad Abshir Saalax Maxamed oo ka soo kici timay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waftida garaadka oo laga hortagay meel 20 kiiloomitir dhanka bari uga beegan magaalada Tani Warwad ayaa socod dheer lagu soo mariyay xaafadaha iyo wadooyinka kala duwan ee dhexmara magaalada Tani Warwad isagoona garaadku u dhaxlugeynayay bulshada dhexdeeda odayaasha wax garadka beesha guuleed garaad ayaa iyaguna si kaliya laab loo soo dhaweeyay garaadka waxayna sheegeen in garaadku uu ku soo dhawaado deegaankiisa shucuurta bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Tani Warwad ayaa saaka ahayd mid aad u kacsan waxaana si weyn looga dareemayay soo dhaweynta iyo waliba hadal haynta garaad Maxamed garaad Abshir Saalax Maxamed garaadka ayaa bulshada fagaaro cad kala hadlay waxaana uu mahad celiyay bulshada soo dhaweysay isagoona Ilaahay uga bariyay in alla qulubtooda isku mid ka dhigo waa kan garaadka oo ka hadlaya arrimahaasi aad baan idin bogaadinaynaa waana mahadsantihiin waxaana ku soo dhaweynayaa garaad Maxamed garaad Abshir inuu inoona duceeyo magaaladana u duceeyo magaaladana salaamo magaaladana soo dhaweeyo waadna mahadsantihiin marka labaad waxaan aad idinkaga mahad celinayaa soo dhaweynta aad noo samayseen aniga odayaashiina la socday oo cadceedda aad muddo u taagnaydeen waxaan idin leenahay jasaakumullahu khayran reer Warwad marka saddexaad waynu iswaraysanaynaa waan idin ducaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu idin barakeeyo inuu idin mideeyo in maaragtay magaaladeenu waa magaalo fac weyn in Ilaahay sidii ugu wanaagsaneed uu ugu taam yeelo in mustaqbalka uu inoo hagaajiyo duriyadooda uu u saalixiyo waa iswaraysanaynaa ilaa iyo galabta iyo berina waa wada joognaa waa si fiican baynu u wada hadlaynaa waxaan leeyahay jasaakumullahu kullu khayr wa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam garaadka iyo waftida la socota waxaan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh soo dhawaada ku soo dhawaada magaaladii Warwad degmadii Warwad dadkeedii waad aragtaan dalkii waad aragtaan waxaan leeyahay soo dhawaada garaad socota waxaan ku soo dhaweynaynaa si wanaagsan oo dadnimo leh waxaan leenahay ku soo dhawaada deegaankiina waa idin soo dhaweynaynaa garaad oo ku soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waa ku idin salaaminaa wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh deegaanada Ari Cadeeye Tuulo Samakaab Dhabansaar iyo Balhar ayaa iyaguna kamid ah deegaanada sida weyn looga soo dhaweeyay garaad Maxamed garaad Abshir Saalax Maxamed waxaana garaadku maalmaha soo socda uu ku sugnaan doona magaalada Tani Warwad iyadoona lagu caleemo saari doono magaalada Warwad Sakariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News Warwad